Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay ninkii imtixaanka dugsiga sare ee ku dhacay ee maalqabeenka noqday. Waxaa inoo marti ah Robin Houston oo ah aasaasaha iyo madaxa fulinta ee ganacsiga hoteelada UK ee Crown Hotels. Waxaa laga yaabaa in nolosha Robin Houston ay ka hooseyn lahayd heerka oo maanta joogo haddii aanu ku dhici lahayn imtixaanadii iskuulka. Waxaan ku dhacay dhammaan maadooyinkaygii dugsiga sare, mana ii suurtagelin inaan jaamacad ku biiro, ayuu yidhi ninkaas 62 jirka ah. Sidaas daraaddeed waxaan isku dayay inaan raadiyo wax kale oo aan ka shaqeeyo. Berigii aan 16 jirka ahaa ma xiisayn jirin hasaabaha hablaha. Hooyadiina waxay ugu odhan jirtay, weligaa waxaad jeclaan jirtay inaad madbaxa dhex meeraysato. Waxay wiilkeeda kula talisay inuu iska diiwaan geliyo koorsada lagu barto shaqada hoteelada. Arrintaas oo kor u qaaday xiisaha uu qabay xirfadda cunto karinta, martisoorka iyo soo dhaweynta. 1994 ayuu aasaasay hoteelka caanka ah ee Dufin, wuxuuna 10 sano kadib noqday multimillionaire kadib markii asaga iyo ninkii ay bahwadaagta ahaayeen ay shirkadda isaga iibiyeen lacag gaaraysa 66 milyan. Wixii ka dambeeyay sanadii 2011, Robin waxa uu dhisay koox kale oo hoteelo ah oo lagu magacaabo The Pike. Haatan wuxuu 6 xarumood oo shaqo ka leeyahay koonfurta England, waxayna shirkadiisa oo ku howlgasho magaca Home Green Hotels uu soo xaroodaa sanadii lacag gaadhaysa 20 milyan. Markii la arkay xirfadda guulaysatay ee Robin, ayaa loo aqoonsaday ninka ugu saameynta badan Britain ee dhanka hoteelada, waayo looguma baran shaqo xumo markii uu ka qalin jebiyey maxadka cunto karinta iyo martisoorka ee Surrey ee ku yaala koonfurta London. Bartamihii sanadii 1970 wuxuu ku biiray barnaamijka tababarka iyo maamul wanaagga ee Savoy Group of Hotels. Wuxuu shaqo hoose oo mudallab ah ka bilaabay hoteelka casriga ah ee Claridge oo ku yaal London kahor intaan u wareegin oo aan isla shaqadaasi ka bilaabin The Grill oo ku yaala Paris. Wuxuu dib ugu laabtay London isaga oo da'diisu ahayd 23 jir, wuxuuna noqday qofkii ugu da'da yaraa ee maamula hoteelka Brigley. Intaas waxa uu ku xigtay 2 sano oo ka soo shaqeeyay hoteelka Primark. Wuxuu dib ugu laabtay UK, waxaana loo soo bandhigay inuu noqdo maareeyaha guud ee hoteelka Hampshire asagoo da'an jiray 28 sano. Robin wuxuu shaqadiisa ka tagay 8 sano kadib, hase ahaatee wuxuu markii ugu horeysay go'aansaday inuu iska sii shaqaysto. Waxaan ahaa 36 jir, waxaan muddo igu filan u shaqaynayay dad kale. Sidaas daraaddeed waxaan ka fekeray inaan sidaasi ku jiro inta nolosheeda ka hadhay iyo inaan isku dayo inaan wax kale qabto. Wixii kale waxay noqdeen inuu la wareego hoteel magaalada bartankeeda ku yaala oo uu xooga saaro iibka cuntada. Sidaas daraaddeed 1994 waxay iskaashadeen saaxiibkii Jared Bassett si uu dah uga furo hoteelka cusub ee Dufin. Si uu u helo lacagtii uu u baahnaa, Robin wuxuu ku guulaystay. Arrintaas waxay ahayd wixii uu geesinimada badnaa ee Jady ay weligeed saamayso. Eebbe ayaa ku mahad leh, ayuu yidhi Robin iyo Jared. Waxay sidoo kale asxaabtooda iyo qoyskooda ka urursadeen lacag gaadhaysa 500,000. Waxay sidoo kale bangiga ka soo amaadeen lacag dhan 750,000
oo dollar. Muuqaalkan waxaan ka baranaynaa in aadan isdhiibin marnaba. Halkaasi ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida.